nabiguna calayhi salaatu wasalaam hal xadiis ma baynu tilmaami doonaa nin baa u yimi oo jaarkiisu ka cawda xadiidku imaam al-Bukhari fi al-adab al-mufrad kuwa aroorinayo sheekh al-Albani leeyahay xasan saxiix nin baa jaarkiisa ka cawday dabeetana ilaahay rasuulkiisa buu wuxuu yiri inna li jara yu'dini ilaahay rasuulkiisa waxa leeyahay mid ii jaara oo dhibigu haya daris dhib badan ayaan leeyahay buu yiri maxaan yeelaa nabigu talusi alaabtaada intaad soo urursato banaanka dhigo banaanka fadhiisa buu yiri wadada dadku maraya oo dadku markay ku yimaadaan la yiraahdo war waxa kugu dhacay u sheeg ninkii sidii taladii nabigu qaato intuu alaabtiisa qaato halka banaanka fadhiistay war maxaa gurigii ka soo saaray maxay dhibto ku haysataa war mid halkan gurigii kaga jiri waayay buu yiraahdaa mid baa soo saaray cidii soo martaba way habaartaa war habaar qabaani muxuu dadka guriyahooda inay deganaadaan u diiday sidee u wadan calanay u habaarayeen ayuu ninka arkay bulshadiiba inay isaga ku soo jeesatay wuu u yimi oo wuxuu yiri warniyahow irji ila manzilik fa wallahi la udhik warniyahow gurigaaga iskaga noqo dib kuu dhibi maaye bulshadii dib kuu dhibi maaye gurigaagii iskaga noqo waxaan xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusiyay mujtamac masaladan la sameeyo waa wiqaayatun lilmujtamac alladhi raaqaba ma hadath waxay ilaalin u tahay bulshada kale waxaasoo kale haddaad samaysay waxaas ugu dhacayaan inay tahay waxay kaloo u tahay darsi ninka kan lagu celiyay ninkii wax dhibayay waxa ku filaaday bulshada cadaadiskeedii pressurkii bulshada ku haysay ayaa keenay inuu ninkan ka fuqo iska daayo marka waxay yiraahdaan bulshadu marka caadooyinka iyo dhaqamada iyo waxaan samaysmaan way adagtay qofku inuu khilaafo hadaan de xaq wadin inuu waxaas khilaafo oo wuxuu ka xishooda war dadka kula yaabay buu isleeyay waa hal oran doona ninkii weynaa war wuxuu sameeyay waa maxay sida ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii dadka badan dilay wuxuu kula taliyay meeshan uu degan yahay inay ardu suuq tahay oo dad aan xumahaba diinaynin inay degan yihiin ee meeshan iskaga tag إلهنا ده القرآن كنبي محمد بابوت المامي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إذا بلشد الضغط جادي يبرشر كيدو قفك بين آدم كهو حواك تشوشين كران لكن كان ينمو حوق بدنا ويوحي كحران طاهيون قفكو إنو ماشان كبحو meelaan laga garanayn haduu tago wuxuu doono sameeyaa meelaan laga garanayn waa la oranayn warsoodigan ciibaba wax sameeyay wuxuu doono iska sameeyaa bulsho ka nooc gadisan waayo waxaan aan qanaacatin iyo aan diinin uga tagaynine cadaadiska bulshadu ku hayay waxaad iyagu ku dhici jiray dadkii dhalinyarada ahaa intay iskuulada ka baxaan Yurub loo diri jiray iyagoo maran dabeetana waxay soo noqon jireen iyagoo sare jooga ku kaacayo khamriga caba ama wax la nooca waayo dadkii ay ka xishoonayeen iyo bulshadii ilaalinaysay ka dhaxbaxeen waxay u tageen meel ardu suuqi uu nabigu ninkan uu sheegay uu yiri ka tago kala dabeetana waa iska firin bideen ay ceebba maaha waxa kan waxa ku hayay bulshada pressure ku haysay ka saddexaad waxay yiraahdaan waa as-sulta wal qaanuun qofku waxa xumaa wuxuu uga baqayaa systemka iyo nidaamka jira iyo qaanuunka ciqaabaya marka hadduu arkayo nin booliis hadduu arkayo waxa sameyn maayo hadduu arkayo auditkii inuu xisaabinayo xisaabta ku jira waxba isweydaarin maayo laakiin kuwa ishoodu hadday yara laabanto wixii isweydaarin kara wuu isweydaarinaya sultada qaanuunka iyo hadii la adkeeyo waxay yiraahdaan Europe iyo North America nidaam baa yaala system baa yaala war system ay dadku ogol yihiin ma jira waa la sanduleeyay jeebkooda qof walba la baadha waxa ku soo galana waa la garanaya gaadhigaad meel qaldan dhigtay lacag bixi wadada dheeraad ku martay lacag bixi halka baad istaagtay ganax baa lagu wadaa dadka ganax baa lagu sanduleeyo lagu aqbal siiyay inuu qof waliba
system raaco qumanaado laakiin isna ceebtu leeyahay waxa weeyaan haddii qaanuunku uu gamco ama isha isku yaro qabto ama qofku meelaan qaanuunka lagu arkaynin uu joogo wuxuu doonu isna sameeyaa dadkan dowladda xada waxaan sameeyaa hadduu isleeyahay sharciga lagu marinaya dee wuu gabanaya laakiin hadduu og yahay qaanuunku mid xooggan inaanu ahayn wuxuu rabo uu isweydweydaarinaya waxaa taa kaaga daran kuwa mutanafidiinta ah ee iyaguba qaanuunka dejiya ama iyaga laga rabo inay qaanuunka fuliyaan kuwana muu qabto masaakiintu muddo qaanuun qabta inta badan madaxda ma qabto meeshuu doonaa joogaan inta badan madaxda qaanuunku ma qabto waayo qaanuunka ama isagaaba qorqoray isagaa masaalixdiisa ku saleeyey ama dee isagiibaa kii fulinayay ma adagta inuu ku qabto walidaalik haddaan wuxuu qanaaca diiniya aanay ahayn tusaalaan ku siinaya reer galbeedka waxaa la yidhaha waa dad xuquuqul bini aadamka ilaaliya waa dad systemka u hogaansanaada waa dad waxaasa saasaa laynoo akhriya marka waxaynoo haysanaa qofka reer yurubka ee caddaanka ahi inuuna cadaalad badan oo xuquuqda ilaaliya oo dhaqankiisu sidan yahay oo quman inuu yahay laakiin dhowr tusaalaan ku siinaya waddamadooda markay ka soo baxaan maxay samayn jireen markay mustacmiriinta ahaayeen maxay samayn jireen meelaan qaanuunkoodu qabanayn markay joogaan maxay sameeyaan مثلا maraykanku markuu ciraaq joogay muxuu sameynayay abu qurayb iyo meelahaasuu dadku guray ingiriisku markuu joogay afghanistan muxuu sameynayay dadka intuu soo qabtay askartu ku kaajaysay qof binaadama lagu kaajayo meedan lagu dul kaajayo maxay sameynayeen مثلا guantanamo maxay u samaysteen hadduu qofka maraykan gudihiisa lagu xidho dee qaanuunku iyaga kale ilaalinaya qabanayo markaa waa adkaanaysaa wixii la doono in laga yeelo ama lagu sameeyo waa meel qaanuunka ka yara fogunge guantanamo la geystay marka waxaad doontaad samayn kartaa waayo sharciga iyo qaanuunkii waad ka bixisay mar hadduu qaanuunka ka fogaado siduu doon u samaynaya maxay belgiik maxay afrika ku samaysay markii ay gumaysanaysay maxaa holandiyiintu ku sameeyeen south africa iyo indonesia iyo markay wadeen faransiisku muxuu afrikada waqooyi iyo afrikada galbeed ka sameeyey macnaheedu waxa weeyaan qaanuunku intuu isagu deganaa buu ku qabanayay hadduu ka baxo wuxuu doonana wuu dili karaa wuxuu doonana wuu samayn karaa mar haddaan qaanuunku qabanaynin haddaba waxaan u socdaa saddexdaa qaybeedoo horaba wax ka muhiimsan baan leenahay oo dadka munadam ka dhigi kara oo dadka samaha waafajin kara waa waasica diiniga ah alwaasic diiniy oo ah shay qofku markuu rumeeyo dhaqankiisa wax ka bedela shay qofku wuxuu samaynayo controla shay qofka waxa saxa iyo waxa qaldan oo labada wadaduu raacayo zaajiro ah qofka bini aadamku uu yeesho damiir iyo dareen xumaha diida khayrkana raadceeya walidaalika isagoo aan ka cabsanaynin intaanaynu sheegnayba waa ka mid oo malihin wax ma taraan waa ka mid systemka iyo nidaamka salafku aqwaasha inta badan laga soo naqliyay maxay dhahay in allaha yazacu bisultaani maa laa yazacu bilqur'aan aw maa yazacu ilaahay sultaanka wuxuu ku joojiyaa lagu celiyaa waxaan qur'aan lagu akhriyaa celinin oo dadku dee ma wada fiicnaadaane in badan waxa ku jiraya afraad u baahan iyaga in maxay qaanuunka lagu qabto laakiin majority-ga waa inuu qabtaa damiirkiisu dadka inta badan waa in damiirku qabtaa inta yar buu markaa qaanuunku qabtaa maalan cahdigii uu nebigu noolaa iyo cahdigii saxaabadii waaweynay joogane kuwa imise qof baa gacan la gooyey kutub alxadiid haddaad akhrido baadho waa dhowr qof imise qof baa la rajmiyey cid markhaati lagu rajmiyeyba ma jirto waa dhowr qof oo iyagu qirtay dunuubta iyo ciqaabaadka qur-aanka iyo xadiidka ku qoran oo dhan imise lagu xukumay waayo dadka majoritigiisa waxaa ilaalinayay waasica diiniga ah
qaanuunku qofkii iyo laba ka baxa ee markaasi gafa buu qabanayay